بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبه ونكسن غيرتها ودaan ku saaxiibnay oo meel walba aad joogtaan iyo si kastoo idiin soo gaarayo maqalka warbaahinta Afrika waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xiisaha ay kalgacalka lahaa oo xilligan oo kala dhageysan jirtoon asxaabta hadee dhagaha la wada taagay loo wada sugi jiro la yiri saacadii ma la gaaray maadayska warbaahinta Afrika caawana habeenadu iskuma sii jiraan waa habeenkii asxaab badan wada sugayeen musharaxa maadayska oo caawa groupka siina uu noo furmayo caawa habeenimo isniin ay sii baxayso talaada ay soo galayso taariikhduna caawa waxa ay ku beegan tahay taariikhdu waxay ku beegan tahay 11 bisha sanadda 2015 caawana waxaanu ku tartami doono wareegan laba ka mid ah wariyaasha warbaahinta Afrika oo caawa aan ku bilaabi doono maadaama group kasta hadda qayb ay ka yihiin wariyaashuna iyaguna aysan ka marnayn dhageystayaashuna dhankooda ay loolan cunus ku dhex mari doono caawana labada wariye ayaa noo saaran oo kala ah maxamed Soomaali iyo Cabduqaadir Fiidka oo iyagu caawa arki doono ninba halka uu ka joogo taageerada oo isagu haysto barnaamijkana caawa lagu ogaan doonaa inta aan ku guda jirno asxaabtuna way soo codeyn doonaan kolka aan codeyntu gaarno وقتها أصحابي عويس ونكسم ميل بوجوكتنا عاوين وكلهم كوادو دقيا مدة waxayna noqotay dabcan hadduu qof yiraahdo anaa ka taageero badan iyo anaa ka taageero badan halka lagu kala baxay waxa uu noqday halkan oo ah habeenka loogu magac daray
musharaxa maaliisku dhegeysto walba taageerihiisa uu ka ogaanaya caawan waxaa isku hayo maxamed soomaali iyo weliba ninka loogu magac daray cabdiqaadir fiidka oo ninka soo baxada la ogaan doono hadda taageeradiisa uu ku badan yahay warbaahinta afrika caawan dadkiisu ay yihiin kuwa soo jeeda cabdiqaadir fiidka inaan khudbadiisa u gudagala ayaan jecelahay markaan iyo weliba qaabka uu u khudbeeyey intuusa un barnaamijka uusan bilaabanin fiidka ayaan markaan codkiisa idiin soo gudbinaya iyo khudbadiisa soomaalina uu ku xigayaa kala codayntuna waxay imaanaysaa kadib markaad ogaato khudbadda iyo qaabka ay u dhacdo. bismillahi raxmaani raxiim. ugu horreyntii waad salaamantihiin dhammaan tiimka maaliiska meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay habeen wanaagsan. magacaygu buuxa cabdiqaadir cumar cabdulle oo ku magac dheer fiidka. waxaan ahay mid ka mid ah musharaxiinta maaliiska caawa. waxaan rajaynayaa inaan guulaysan doono haddii rabbi qadaro. haddaan guulaysto wax badan ayaan dhalinyarada u qaban doonaa. haddii ahaan lahayd sida inaan u sameeyo tartamo kubadda cagta ah, dhanka waxbarashada inaan sare u qaado oo kale, sidoo kalenta inaan mideeyo dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. marka hadal badani haan ma buuxsho. marka caawa waxaan rajaynayaa inay dhegeystayaasha codka kalsoonida ah isiin doonaan insha allah. haddaan guulaysto waa soomaaliya guulaystay, hadduu maxamed soomaaliya guulaystana waa anigii guulaystay. marka waxaan leeyahay dhammaan bacda maadiiska ku xiran habeen wanaagsan. dhammaantiinna waad mahadsantihiin. Malaysia, Africa, Malaysia, Africa. Malaysia, Africa, Malaysia, Africa. waa tahay waa uu soo gudbiyey khudbadiisa cabdiqaadir fiidka iyo habka uu wax u qabanay. weliba wuxuu ku darsaday halka asxaabtu ay ku dheelaan kubadaha cagta ayaan iskugu dardarayaa buu yidhi inaan u dhisaan isku dayaa, iyo weliba tartan sportis ayaa jiri doonuu yidhi oo dabcan fiidka ugu magac dari doona umalaynaya. dabcan isaga ogaa doono dabcan halka uu ka dhigan doono. welina waxaan ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka, balse qof walba markuu khudbeeyo taariikh baa xigta. taariikhda iskama sheekeeyo qofku, dhegaystayaasha waa loo gudbiyaa, balse markaan taariikhdan idiin soo gudbinayaa. cabdiqaadir fiidka waxa uu dhashay sanadii 1995 waxa uu ku dhashay gudaha magaalada muqdisho. iskuulka wax ku soo bartay waa dugsiga sare ee horseed. sanadii uu soo dhameeyey iskuulka waa 2011 2012 ilaa 2013 waxa uu ku sugnaa dalka Suudaan, gaar ahaan jaamacadda Suudaan University ayuu dhiganayay. fiidka waxa uu dib ugu soo laabtay isla sanadii dhamaadkeedii 2013 waxa uuna bilaabay jaamacadaha ku yaal mid ka mid ah gudaha magaalada muqdisho. weliba jaamacadda Soomaaliya waxa uu dhigtaa faculties ama waxa uu barto waa engineering full time ayuu dhigtaa. part time waxa uu dhigtaa jaamacad kale oo ku taal gudaha magaalada muqdisho, waxa uuna dhigtaa public administration. waxbarashadiisa ayuuna ninkan inta badan ku mashquulaa, ma aha nin inta badan siyaasadda sii gala ama arrimaha kale. xaaladiisuna waa sidaas. maxamed soomaali ayaan markaan gudagelayaa isagana iyo khudbadiisa goordhow ayaan idiin soo gudbin doona. yaa la sugu weynin.
meel walba waa joogtaan asxaabi caways wanaagsan habeenku haddii wacnaado ayaan hawadin ka leenahay maxamed soomaaliya ayaan markaan dabcan kusoo dhaweynaya mikrofonka iyo khudbadda oo asxaabtiisa hadda leeyahay caawa hawadan u marinayaa waan ku dhowahay abshir maxamuud maxamed waan salaamayaa dhammaan bahaweynta soomaaliyeed meel walba joogaan khaasatan taageerayaasha barnaamijka maadeyska africa dhammaantood waxaan leeyahay caways wanaagsan meel walba joogtaan si walba aad inoo dhageysanaysaan marka xigta ani haddaan iska warbixiyo magacayga oo dhammaystiran waxaa la dhahaa maxamed abiker oo lagu magacaaba maxamed soomaali marka kale haddii aan ka faalloodo waxbarashadeeda iyo taariikhdeeda iyo meeshii aan ku dhashay aniga waxaan dhashay 1991 ayaan dhashay waxaana ku dhashay magaalada beledweyne ayaan ku dhashay waxbarashadeedii waxaan kusoo qaatay dugsigeygii hoose waxaan kusoo qaatay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya ayaan kusoo qaatay khaasatan guday gacala meel la yiraahdo ninkii yaqaan ayaan kusoo qaatay waxaa ii soo haray ilaa iyo form 1-keygii form 2-keygii form 3 ilaa form 4-ka waxaan ku qaatay dugsiga sare hoose ee la yiraahdo iqra oo ku yaalo xamar jajab iyo xamar weyn inta u dhaxayso ayaan ku qaatay waxaan qalin jibiyay sanadka markuu ahaay 2012 u dhawaan meelahaas ayaan qalin jibiyay waxaan waxbarashadeeda sii watay oon ku biiray jaamacadaha magaalada muqdisho jaamacad ka mid ah ayaan ku biiray khaasatan jaamacadda Balasma halkaas ayaan waxaan ka bilaabay waxbarashadeedii kala heerkii koowaad oo baajka ayaan ka bilaabay ilaa haddana weli iima aysan dhammaanin waan wadaa waxaan leeyahay taageerayaashayda ama dadka ku taxan barnaamijka maadeyska haddii aan ku guuleysto caawa musharaxa maadeyska Afrika haddii aan ku guuleysto haddii ay baraali ka noqdo waxaa qaban doonaa ama bulshada u qaban doonaa khaasatan dhalinyarta horta dhaxgalka bulshada waan badinayaa haddii ay baraali ka noqdo anigoona u fiirinaynin kan ayaa hebel waan badinayaa mideeda kaleento waxaan u qaban doonaa haddii ay baraali ka noqdo dhalinyarta inaan maanta booska ay taagan yihiin booska wanaagsan inaan geeyo haddii aan la dhan waxbarasho khaasatan ragga oo aan waxbarashada jecleen waxaan ku dadaalayaa inaan waxbarashada aan kaga faalloodo micnaha ay leedahay iyo macaaniista ay leedahay waayo nimaan wax baranin waxba ma aha la dhahay qofka markuu wax barta ayuu wax noqdaa xaq lagu leeyahay inuu garanayaa haddii aan la xaq wadanka uu ku leeyahay iyo haddii aan la xaq waalidkiisa uu ku leeyahay xaq ummadda kale ay ku leedahay inta uu garanayaa marka ani ahaanteydu waan dadaali doonaa waxyaabo badan waan u sameyn doonaa dhalinyarta Soomaaliyeed haddii ay baraali ka noqdo anoo badin doono waxyaabaha ay isku fahmi karaan dhalinyarta dhanka iyo waxbarashada haddii ahaan lahayd xagga iyo sportska haddii ahaan lahayd dhan walba oo dhalinyarta isku fahmi karaan ayaan badin doonaa haddii ay baraali ka noqdo waxaan rajaynayaa in codkooda qaaliga ah ay isiin doonaan waana mahadsantihiin dhammaantiin waan idin salaamayaa waata aad u mahadsanyahay maxamed soomaali iyo khudbadiisa habka wacan dabcan uu inoo soo gaarsiiyey ayuu kaana ahaa oo caawa khudbad hadde qiimo le inoo soo gudbinayay aad buu mahadsan yahay maxamed iminka waxay ka dambeeyeen asxaabta soo codeynta ayay bilaabi doonaan guddiga caawana stuudiya dabcan ma aha maadaama stuudiya dabcan laba wariyo oo warbaahinta afrika ka socda ay tartamayaan tartan xiise badanna oo caawa dhex marayo dabcan dhanka iyo banaanka asxaabta ku howlan ayaa caawa dabcan barnaamijka ka qaybgeli doonto oo guddigiisa joogto oo guddiga barnaamijka caawa dhanka ay dhegeystayaasha qaar ka mida gaar ahaan tiimka maadeyska asxaab ka mid ayaa caawa guddi inoo ah sida maxamed laki oo ah guddiga koowaad ee barnaamijka caawa dabcan dhanka dabcan qorista la socon doono sida labada wari loogu kala codeyn doono maadaama kulanku uu adag yahay labadaana dabcan waa la arki doonaa halka xaaladooda ay ku dambeysay cidda soo baxdo iyo mid walba ballanqaadkiisa guddiyo yaryar oo isuga iska jiri doonaan balse guddiga koowaad caawa oo doorashadan u xil saaran waa maxamed laki oo dabcan dhegeystayaasha ugu horreeya tiimka maadeyska ka mid ah weliba asxaabta qaaska u ah ayuuna ka tirsan yahay mar kale caways wanaagsan codeyntana iminka wixii ka dambeeya way noo bilaabanaysaa
الرحمن الرحيم ugu horreyntii waad salaamantihiin dhammaan tiimka maaliiska meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay habeen wanaagsan magacaygu buuxa Cabdiqaadir Cumar Cabdulle oo ku magac dheer fiidka waxaan ahay mid ka mid ah musharaxiinta maaliiska caawa waxaan rajaynayaa inaan guuleysan doono haddii Rabbi qadaro haddaan guuleysto wax badan ayaan dhalinyarada u qaban doonaa haddii ahaan lahayd sida inaan u sameeyo tartamo kubadda cagta ah dhanka waxbarashada inaan sare u qaado oo kale sidoo kaleenta inaan mideeyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka hadal badani haan ma buuxsho marka caawa waxaan rajaynayaa inay dhageystayaasha codka kalsoonida ah siin doonaan insha Allah haddaan guuleysto waa Soomaaliya guuleystay haddii aan Soomaaliya guuleystana waa aniga guuleystay marka waxaan leeyahay dhammaan baada maadiiska ku xiran habeen wanaagsan dhammaantiin waad mahadsantihiin maadiiska Afrika waa asxaabay caawis wanaagsan meel baa joogtaan dhegeystayaasha ayaan markaan dib ugu laabanayaa iyo wareegga labaad halaw dhegeystaha ugu horreey halow kaaba Ashir Maxamed aday inta taageerta maadiiska caawis wanaagsan caawis la mid saaxiib sare soo dhow magacay degmada aada weyn waa dhawaa kaaba magacu waa Saabir Cabdi Cali ugaadka xamureyn fi ijtana loo kaasoo leh waa tafiye jita caawis lugaa aada weyn kaaba waa lagu leeyahay barnaamijkan maadiiska dhigta lagu haya haya caawa codka alle lehe uu u qalmaya is leedahay kaaba codkayga qaaliga caawa waxaa sii laaya Cabdiqaadir fiidka ku lahaa caawa leedahay aada weyn kaaba dhalinta wuxuu qaban doonaa le kaaba caawis wanaagsan cawisna midaadan ku salaama ugaaskaabka wacan oo barnaamijka uu qayb qaatay dhegeystayaashii hore wareegga koowaad ka idlaado wareegga labaad jecel ayaan markaan u leexanayaa si iyagana haddii codadkooda caawa ay soo gudbiyaan asxaabta kalena waxaan leeyahay waa Ibril 17 Ibril iyo Ibril 17 Ibril codayntu caawa nambarada weeye asxaabta fariimaha dabcan ugu soo weydiinaysa ka ayaa si toos ugu codayn karta codkaaga waa cod gudbayo marka ka dabcan wicitaan noogu soo gudbisho inkastoo fariin qoraal caawa laga cudur daarto labada ruux bay yihiin kuwa doonayo inay tartan xiiso badan soo bandhigaan codad maqalana ay labadooduba u baahan yihiin marka wax fariimaha ma jiraan oo barnaamijka sharcigiisa kuma jirto fariimo waa maqal oo kaliya dhegeystayaasha kalahan markaan sii gudagelaya oo qodadka imika xaadir ku ah dhegeystahan haddaan u tallaabo markaan qadka ku jiro halow dhegeyste halow ahgaag dhegeystahaas isagana waxaa moodaa inuu qadka go-ay kan kale ee xaadirka ku ah halow kaabo salaam imaamku waa Cabdisaaq Cabdi Daawud oo ku magac dheer Giley ku celi magaca Cabdisaaq Cabdi Daawud Bashaale Saacad waa ta Cabdirasaaq xagee joogtaa degmadu waa hodan xaafaddu waa KBB hayo codkaaga caawa codkaygu waxaa sii lahay Maxamed Soomaali Saacad waa ta aadan ku salaama caawis wanaagsan afka waxaan uga soo qayb qaadatay Cabdirasaaq waad ku maasan tahay dhegeystaha kale ee waqtigan baqadka ku jira inaan u leexdaan jecelahay halow وعليكم السلام سودو ولا سري mid la mid walaashii magacii degmada ii raaci waa tahay warsida caaw amra sidee lugaa haye codkaaga fiidka caaw leedaa wuu istaahilaa codkayga waa taa anagana guulaan u rajeynaynaa haween wanaagsan amran habka wacan ugu soo qayb qaatay dhegeystayaasha kale ee weli alla qadadka ku jira ayaa sii gudagelayaa halow soo dhowow magacay degmada shukra cali jaamacadaha caawa sidee lugaaya haye caawa labadan ruux oo codadkooda aada dhegeysatay iyo taariikhdooda yaa u codaynaysaa codka sare u dhig ku celi mar kale si aan kuu faahno labadan maxamed Soomaali caawa codkaaga siin lahayd waa tahay aada umaasantahay caawis wanaagsan dhegeystaha kale ka dambeeya ayaan siinayaa dhegeystahaas habka wacan uga qayb qaatana uu ku maasan yahaan leenahay dhegeystayaasha kalena waa inoo xisaabayin dabcan inta noo hartay inta baxdana way inoo xisaaban tahay aan leenahay dhegeystihii iminka ugu dambeeyayna Maxamed Soomaali ayuu cod ka siiyey dhegeystahan aan arkay isagana halow Ashir Maxamed ay dhamaan inta caawis kan xisaysa waxa ay la caawis wanaagsan mid la mid saaxiib sar soo dhow
وأنا أفسره وأيسى وبكر أحمد حافظة شركة العاوة حالي بحكوها shirka le martiya caaw noqotay أفسره ومستي عالم مغضب sidee lagu soo dhaweynayo أفسره والله raashin oo dhan waa laga go'a imtixaana laga fikiraa weli soo dhaweey lama gelin waa tahay saas waa wax weyn ma jiraan cunno weyn toddobaadkan ma jirto cunnada waa nasanaysaa haye caawa codkaaga in afsiro codkay fiidkaas yeelaani caawa insha Allah dibna ordina fiidkaa siinaysaa wax badan buu qabanaya leedahay ha afsiro wax badan oo ka dhabay doona wuxuu sheegay insha Allah aadaan kuu salaama okay ata dhegeystayaasha ugu dambeeya ayuu qaybka isagana oo dabcan waqti aan la soo xiriiraysa hallo السلام عليكم وعليكم السلام soo dhawaada wadada abshir habeen wanaagsan habeen la mid ah walaal sare ee magacii degmada i raace magaca waa Sheynad Xaaji xaafadna Bakaara waa tahay Seynabi caaw Bakaara sidee lagu yahay waa lagu wanaagsan intaan ka warqabo haye caaw waa la socotay barnaamijka dabcan labada qof oo loo kala codeynayo si wanaagsan caawa aan socdaa barnaamij qurux badan haye dadkayga waxaan filayaa maxamed Soomaali ayaa istaahila leedahay si wanaagsan maadaama khudbadiisa ay soo jeedato waa tahay aadan kuu salaama Seynab aad bay umahadsan tahay waa dhegeystihii dabcan imika ugu dambeeyey Soomaali ayayna codkeeda siisoo tiro khudbadiisa dabcan ninka hab khatara buu u khudbeeyey maxamed Soomaali dhankii khudbadaha in lagu ammaanayaad moodaa markaan dhegeystaha kale markaanba waqtiga uu siiyey barnaamijkan uga qayb qaato ayaan jaaniska siinayaa hallo السلام عليكم وعليكم السلام soo dhow raadiyaan iska gaab saaxib saaxiib sare adiga iyo saaxiibka barnaamijka sameynaayo oo salaamintiin magacu waa Salmaajo degmada Hodan TBB aan kala saxdiray Cabis Warasan waa tahay Salmaan haye caawa codkaaga saaxiib sare waxaan siinayaa saaxiibkii qaaliga ee fiidka waa tahay aadan kuu salaama saaxiib habka wacan oo aad uga qayb qaadato oo aad fiidka dabcan codkaa u siisay walaalana qaybihii dhexe ayaan ka maraynaa marka la eego wareegga labaad oo dhanka barnaamijkana qaybihii dambe ayaan ka maraynaa hallo waa tahay dhegeystahaas uu ku go'a qadka sida aan dareemayo dhegeystaha kale ku jira aan siiya hallo dhegeyste walaal Maryam Rono joogto walaal Maryam Rono holwadaag joogto caaw sidee luga Maryam Rono holwadaag ما شاء الله أنت كورغول وفينا haye caaw u guda galo codkaaga siin leed أكيد واحد فينا نحن Soomaali طبعا maxamed Soomaali caaw dhankiisa codkaaga siin leed aadan kuu salaama caawis wanaagsan Maryam Rono holwadaag joogto aad bay umahadsan tahay Soomaali inay codkiisa ayaan dareemayaa aad ay umahadsantaan leeyahay Maryam Rono asxaabta kale ayaan weli alla ku guda jiraayo haddee caawa jaaniskooda aan siinayaa si ay barnaamijka hadda qayb uga noqdaan Soomaalina in codadkii dambe la siinayo aad waqtigaanba moodaa kuwo kale qadka ku jiro dabcan markaan doonaya inay ka qayb qaataan qaybaha ugu dambeyn waan ka maraynaa wareeggan labaad oo halka ugu dambeeya la arki doonay hallo waa uu ka go'ay dhegeystahaas isagana sida aan u jeedo dhegeystaha kale ee waqtigaanba nasiibka uu siiyey ayaan siinayaa hallo السلام عليكم وعليكم السلام soo dhow walaal walaalkii abshir oo salaam علي walaalku kusoo asxaabta Afrika dhigteeda caawis wanaagsan magacu waa Najma Hareer waxa jooga waa tahay Najma Hareer wadajir caaw sidee lagu yahay inta ka warqabo lagu fiican yahay Afrika dhigta lagu hayaa barnaamijka maadiska waa tahay barnaamijka maadiska caawa asxaabta waan uga mahadcelinaa inta dhegeysanayso caawa khudbadaha haddaad dhegeysanayso codkaaga caawiyaad ugu shubi lahayd أنا عدت خطبة ورت وحيسوي جيبتي برامج كرت هذا أول سعودي وحيسوي جيب نحن صومالي وعودين عن dhanka Soomaaliya caaw u wicin lahayd codkaaga ونكسب aadan kuu salaamaadii asxaabta wadajir waa tahay dhegeystihii ugu dambeeyay oo ahayd Najma Hareera oo wadajir nagala soo xiriirtay codkeeda waxa ay siisay dabcan sida aan dareemayo maxamed Soomaali habka wacan codka maasantaan leenahay oo barnaamijkaad igala soo qayb qaatay asxaabta kale ayaa weli alla barnaamijka ku harsan
waata asxaabta kale ee weli alla dadka soo beegsanaysa warbaahinta africa ayaan jaaniskooda u eegeynaa iyo halaaw halo soo dhow walaal wadhawahay walaalkay magaca waa ifraax xaaji xaafadan oo basaara ifraax xaaji bakaaraha joogtaa si wanaagsan ifraax caaw sidee lugaa bakaaraha waa lagu wanaagsan haye codkaaga caawa ee yaa ku biirin lahayd in soomaaliya siya maxamed soomaaliya caawa codkaaga siinaysaa si wacan waata ifraax aada umadsantaadi asxaabta bakaaro joogtaba asxaabta kalea weli alle sii siin doonaa jaanisadooda si ay barnaamijka qeyb uga noqdaan caawa waxaa moodaaba kulankan inuu aada u adag yahay oo dhegeysto walba hadda codkiisa inuu hadda saaxiibadiisii u rajeynaya dhegeystahan aniga halaaw adowkaab waa ku salaamay waa kaa qaada magacii degmada magacayga waa cabdirasaaq cabdidaauud oo kumaqdha cabdirasaaq baashaar oo kaala saxaree degmada hor gaar ahaan xaafadda k b b saaxib waa tahay cabdirasaaq aada buu mahadsan yahay daaya inuu ka qayb qaatay ayaa dabcan asxaabtu ay sheegayaan dhegeystaha kale ku jira qadka ayaan markaan siinayaa si uu barnaamijka qayb uga noqdo asxaab ay hal mar waayo codka mar damban dabcan inaan lagu soo laaban ayaan jecelahay dhegeystaha kale ku jira ayaan jaaniska siinayaa waqtiganba oo barnaamijka ka qayb qaadanaya halaaw halaaw wacalaykum asalaam soo dhow walaal waan dhawaa absi inta ii dhegeysanaysa africa waxaan leeyahay caways wanaagsan caways lamida magacii raac walaal magacu waa hibo cali maxamed hibo habi kusuma degmada xamarweyne gaar ahaan xaafada koodka waa tahay hibo habi koodka caw sidee lagu haa maasha allah aad baa lagu wanaagsan yahay idaacadda africa waa dhegta lagu hayaa haye u guda gala caawa codkaaga waxaan jeclaan lahaa abshir oo maxamed soomaaliya yaa kala tarsamaayo iyo fiidka waxaan siinayaa codkayga fiidka dabcan codkaaga la jeclaatay si wanaagsan aadan kuu salaama hibo habi mid lamid ah walaalkay waa tahay aada umadsantahay hibo habi oo waxaad nagala soo xiriirta xamarweyne asxaabta kalea weli a lasii gudagelayaay oo barnaamijka caawiga la qayb qaadanayso dhegeystahan aan siiya halaaw mid lamid a magacii degmada halo waa tahay dhegeystahaas inaan sheero maqlaanahay ayaad moodaa ooba qadka uu saamixi layahay asxaab kale oo fara badan ayaa jirto oo markaan dabcan igala qayb qaadanayso barnaamijka goordhow aan siin doono waata asxaabey habeen wanaagsan dhegeysta qofka ku jira halaaw halo soo dhow walaal saabashiradi iyo dhegeystayaasha madiska iyo tartamayaasha cawada midka la saaran habeen wanaagsan habeen lamida saaxiib sare saa magaca maxamed oo ku sugan maxamed cabdullaahi oo ku sugan degmada hodanka axmed sanadkii maxamed cabdullaahi soonankii sidee lagu yahay aada ugu wanaagsan yahay saacad haye caawa labada musharax codadka khudbadooda dhegeysanaysa maxamedow dabcan waa filaya in maxamed soomaali wax badan oo kulan doono saaxib bashir oo martibaya ku leh codkana maxamed soomaali waaye dabcan saan dareema si fiican si fiican waata adi asxaabta kaleba caawa habeen wanaagsan habeen labada kugu rajeynaya saaxib waata aada u mahadsan yahay dhegeystahaas habka wacan oo barnaamijka ula soo xiriiray asxaabta kale ee weli alla barnaamijka hadda nagala qayb qaadanaysa ayaan jecelahay inaan dhankood u leexdo waana gebagabo dabcan barnaamijka sida aan waqtigaanba dareemayo hallow hallow halo haa soo dhow sacab waa dhawaa saaxiib nimku waa cali cadaan cabdi oo ku magac dheer cadaan xaggee joogtaa degmadu waa yakshid haye codkaaga codkayga waxaan sii lahay saaxiib maxamed soomaali waata waa maasantaan leenahay dhegeystahaas isna habka wacan uu uga qayb qaatay uu cali dabcan magaciisa ku sheegay aada buu umahadsan yahay soomaaliya oo dabcan codkiisii dhegeystayaasha kale weli a lasii gudagelayaa ama aan ka baarbaarayaa dhegeystayaasha kale aan waqtigan u gudagelayaa balse asxaabtu waxay leeyihiin codadkii tooska ahaa waa kugu dhaco waqtiga way kuu dhammaatay
ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo howlaha arlada haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi waata asxaabay qeybi ugu dambeeyay barnaamijkan isla soo gaarnay dhammaanna in ay noo soo idlaatay ayaad muddaa wareeggii koowaad iyo wareeggii labaad ee codaynta asxaabta caawna ay ka qayb qaateen asxaab badan oo leh ayay jirto waa islaamnay dhammaan daadiyaasha barnaamijka iyo weliba ka qaybgalayaasha hambali maxamed soomaali waa iqro wadajiraan absiro kala soo xiriiraya dhegeystaan kale waxay leedahay waa salmo waxaan joogaa waa berey absirow fiidka hambalyaan leeyahay isna inuu guulaysanayn ayaan rajeynayaa dhegeystaan kale fariintana soo gaarsiiy waxuu leeyahay assalaamu calaykum waa mahadsantihiin bahda maadiiska cali nuur cali wadajiraan jooga hambalya fiidkaan leeyahay dhegeystayaal fara badan ayaa caawa dabcan hambalyaynayo oo dhanka iyo fariimaha guud ahaana marka la isku soo dardaro oo barnaamijka qaybaha ugu dambeeya maadaama aan marayno codadka iyo sida ay u kala keensteen ayaan markaan jecelnahay in aan soo bandhigno dabcan wareegga koowaad maxamed soomaali waxa uu helay 7 cod oo halkaa uu ka qaatay 7 dhegeysto dabcan ku yeeshay cabdiqaadir fiidkan waxa uu ku yeeshay 5 dhegeyste wareegga labaad marka la isku soo laabtay maxamed soomaali waxa uu helay 7 ruux oo isla wareeggaana maxamed soomaalina 4 ayuu helay sidaas maxamed soomaali 14 dhibcood ayuu kula hoyaada caawa maxamed soomaali waa 14 cod cabdiqaadir fiidkan halkaa waxa uu ku qaatay 9 cod waxaad muddaa cabdiqaadir fiidka saxaabtiisa caawa inay caawa ka hurdeen baad muddaaba 2 codna dabcan waa iska kansaray oo barnaamijku waxay noqdeen dhegeystayaal ku soo laabtay waxaanu ku soo gabagabowday natiijada 23 iyo oo 23 ay ku soo gabagabowday halka barnaamijka loogu talagalay 25 oo tiro isdheer ah oo in uu qofna helo haddii dabcan dhegeystayaasha ay sinaadaan 1 dhibic wax ka badan lagu kala sara marno bareejo dabcan ma jiri karto balse lambarada ay isleeyihiin bareejo ay jirto sidaas ayaana la go'aansaday maadaama kulanku ahaa mid adag oo groupka C uu noo bilaabanayay maxamed soomaali aan siinayaa intaan ka bixin anigoo isku day doona xitaa maxamed lakiyo dabcan guddiga ahaa caawinaan isna dhankiisa soo xiriiriyay oo aan siiyay qadka waa ku dhowahay abshirow adiga iyo waa nii salaamaya taageerayaasha barnaamijka maadiiska waxaan leeyahay horta hambalyo taageerahayga dhammaan inta codka isiisay iyo inta codkaan aan isaynin baan u hambaleynayaa waanu mahadcelinayaa waa gartay caawa waad ogaatay dabcan taageerada barnaamijku leedahay oo barnaamijka dabcan sharax waxa uu noqday labada ruux hadday dhegeystahay hadday wariyaal yihiin labada in isku qabsata aniga kaa dad badan dabcan halkaana garsoor cadaalad u noqon doonto si wanaagsan abshirow laakiin annaga iskuma qabsan aniga kaa dad badan balse laakiin waqtiga unbaa qornay soomaalina cawada meeshaan lasoo fuulo oo ay noo codee la dhah waa sidaas marka aniga waxaan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha maadayska afrika cid aan maanta leeyahay ciddaas waa ma lahan dhammaantiin waxaan leeyahay hambalya haddii aniga aan guulaystayne waa siduu hore u sheegay saaxiibkay fiidka waa fiidka guulaystay hadduu fiidka guulaysan lahayne waa soomaaliya u guulaystay marka waxaan leeyahay bahda maadayska afrika caways wanaagsan waan isla joognaa hadduu ebraal ku noqdo habeen walba oo barnaamijkan maaragtay doorashada hadduu ebraal ka noqdo wataadan ku salaama maxamed soomaali habka waxaan uga qayb qaadatay goor dhow dabcan waxaan didayeynaa waa maxamed laki oo daqiiqad inaan siiyo isna aan jecelahay in uu barnaamijka iga qayb qaato dabcan taleefankiisa intaan ka helayn ayay ku xiran tahay hallo dabcan isna waan laahay maxamed laki dabcan dhegeystayaal kale dabcan weli doonay inay barnaamijka ka qayb qaataan balse inuu idlaaday ayay dabcan ku wargelinayaa maxamed soomaalina khudbadiisu waad aragteen waa maxamed laki oo kaliya cidda yaarsan wax yar kadib astaan kadib waan isku soo laaban doonaa hadduu dabcan taleefanka maxamed laki aweynane waa kasii gudbi doonaa ama isaga ayaa dabcan barnaamijka la soo xiriiri doona awlaha
halo laki abshir adiga dhammaan inta ku xiran afrika labada sanan oo sameeyay waxaan leeyahay habeen wanaagsan hambalyo waa taa hambali anigana ku leenahay soo dhowow qaybii ugu dambeeya ayaan ku guda jirnaa barnaamijka dhanka hambalyada ku aadan maadaama guddigii cadaaladda caawa aad ahayd waa ku maasanta abshir sida ayna caawa la rabay ayay u dhacday ilaahay mahadis ayayna macnaha taas noogu sugnaatay dhegeystayaasha waxaan aad u jeclaan lahay taleefanada in ay taxdiraan qofka ay u codeynayaan inuu hal qof ahaado ma aha inay laba qof macnaha hal qof inay laba cod siiyaan ma aha marka dhegeystayaasha taas ayaan macnaha ku dhiirigelinayaa marka intii caawa macnaha kasoo qayb gasayna way maasan tahay sidii la rabana caawa way u dhacday oo 100% ilaahay xaqiisa ka sugnaatay saan dareemayna maxamed Soomaali waa uu guuleystay xaq guddigana caawa waaba ahaynba oo qaladaadka iyo macnaha kala saxinay taasna xaq alle ka sugnaatay waa tahay lakiyo asxaabta ugu dambeyntii maxaad uga tagaysaa waqtiga gabagabadaan joognaay asxaabta meel walba joogaan waxaan leeyahay habeen wanaagsan asxaabta afrika ku xiran asxaabta saaxiibada la afrika dhammaantood waxaan leeyahay habeen wanaagsan waxaana markood aan ugu dardaarnaa waxay tahay in ay mar walba markii tartan uu jiro aysan macnaha taleefanka halka qof uusan laga codeelan oo qofka u codeyn taas ha iska ilaashaan waa sharaf xumo idaacadaysa u keenin waa tahay adaan ku salaamaa caways wanaagsan laki okay saaxiib ومسيح محمد كايو هجود هنا عاو انت ayaan ku keenaya barnaamijkii oo wasaab badan ay kala qayb qaateen intaan kulmi doono kuwa qadad ku jira kuwa soo wacay inta waxay noo balana habeen dambe iyo barnaamijka Bollywoodka ayaa noo balana oo asxaabtu ay yihiin kuwa si diyaar garoobay dabcan toddobaadkan taariikhda Salmaan Khan ayaa miiska noo saaran waan habeen dambe habeenkaas ayaa noo balana asxaabe annagoo isku xiiso qabno habeen dambe Allah isku keenaan leenahay sidaas iyo nabadeena kulanti lahaa